hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha iyo qaayaha badan kusoo dhawaada muuqaalkeenii ugu dambeeyey maanta oo aan kaga hadlayno literature review. Muuqaalkan wuxuu gunaanad u yahay 3 muuqaal oo aan ugu talagalnay inaan kaga hadalno sida literature review loo qoro. Videogii ugu horreeyay waxaan kaga hadalnay conceptiska muhiimka ah inaad literature review qorto. Videogii labaad waxaan kaga hadalnay hal tool oo basic u ah inaad literature review qorto kaasoo loo yaqaano annotated bibliography. Videogan saddexaad maanta waxaan kaga hadlaynaa advanced level of literature writing. haddii aad barato oo qoristaadu skillkiisu yahay mid advanced level ah waana arki doonaa wuxuu yahay. Marka waxa aan maanta qori doono intaan sharaxaad galin sidee u ekaan doonaan aan wax yar idin tuso. This is what we are going to write. waxaan rabnaa inaan qorno waa kana. Marka sidee loo qoraa bilaawa ka bilaabaynaa gacanteedana ku qoraa waana ila soconaysiin. Marka waxaan bilaabaynaa waxa maanta aan baran doono. Intaanan bilaabin ka hor marka aan idin xasuusiyo fadlan ha hilmaamin inaad channelka subscribe dhahdo videogana aad like dhahdo si uu u gaaro dad badan si aan halkan ugu aasno bulsho Soomaaliyeed oo waxbarasho ku salaysan. Maxaan rabnaa marka maanta inaan barano maanta waxaan rabnaa tool ugu muhiimsan tooliska literature reviewga. Markii aad rabto inaad qoristaada levelkeeda uu noqdo advanced level waxaan baranaynaa waxa waaye kan waa isxasuusin qodobka koowaad laakiin normally waxaan u socno maanta waxaa loo yaqaanaa synthesis matrix. Synthesis matrix aan baranaynaa waa hadda excelkii aan idin tusay qaabka loo qorayna waa arkaynaa. Marka normally literature review waxaan soo sheegnay daraad hadday la socoteen articles inaad raadiso waa baranay processka si loo raadiyaa video aan ka duubnay haddaa rabtid ku noqo. Qodobka labaad waxaan wuxuu ahaa articleskaada inaa assess garaysid. sababtoo assess garaynaysa waxa waaye topicyadaada relevant ma ku yihiin mise ma ku aha. Okay, kadib waxaan kaloo baranay articleska see loo summarize gareeyaa. Video horaa kan ka horeeyay waa labaad ku noqo fiirso haddii aadan aqoon sida loo summarize gareeyo articleska waxaa la isticmaalaa tool loo yaqaano annotated bibliography. Maanta maxaa rabnaa marka inaan barano sidee la isugu xiraa synthesize loo sameeyo. Marka skillkan maanta haddaa aragtid in badan inaad jeclaatida aanba u malaynaa laakiin ku dadaal inaad basicgiisa isla fahno kadibna practice garayso. Ha ku tiirsanaanin keliya sharaxaad isku day gacantaada inaad ku qorto. Literature sida qofka ma jiro qof literature qof kale ka fiican keliya waxaa la isku dhaaf waxa waaye practice try. Marka ugu horeyso skillka wuxuu kula ekaanaa inaadan fahansanin laakiin the more you write the more skillful you become at literature writing. waxaan marka baranaynaa synthesis matrix maxaa la dhahaa. Marka ugu dambeysana waxaan qoraynaa synthesis literature gacanteena ku qoraynaa waa arki doontiin. Marka these are the topics aan maanta rabnay inaan barano. aan galna marka normally literature marka aad qoraysid waxaa haysataa research question sax. research question kan aad haysatid marka waxaa lagaa rabaa in aad answers u raadiso. answerska aad raadinayso waxay ka imaan karaan journal article waxay ka imaan kartaa questionka answerkiisa journal ka imaan karaa book ka imaan karaa book chapter ka imaan karaa document dawladda ee leedahay ka imaan karaa hay'adaha UN ka datada ee qoreen ka imaan karaa anywhere uu ka imaan karaa sourcigaada. Marka waxa muhiimka ah marka waxa waaye sourceyadan kala duwan waxaa laga rabaa inaad answerskooda qayb inta isugu geyso su-aashaas si loogu jawaabo marka isu xirto. isku xirkaas waxaa loo yaqaanaa synthesis. waxa waaye jawaab gooni ah waxaa ka heli kartaa journal article hebel iyo document dawlad hebel ee qortay iyo book chapter si ay ugu jawaabeen su-aashaada. isla sidaasoo kale article kale iyo book kale waxay ayagana ugu jawaabeen si kale. kuwo kale iswata ayagana waxay ugu jawaabeen si kale. mujida qayba oo kala qaybinaya kadib qolo kastoo isleh isku guruwa ku xiraya kadibna kaasaa qoray. kuwaasa waxaa loo yaqaanaa synthesizing. marka sharaxaadda waa yar boobsiinaynaa si aan u galno waxa la sameynaya gacantiina ugu aragtaan. synthesize markaas la fahno synthesize haddaa maqashid waxaa si fudud haddaa rabtid inaa fahantid analysis ka fikir hal mar. analysis maxaa la lahaa macallin wuxuu ku dhalcala jabtarkan qaad soo analyze garay. analyzeka waxaa laga wadaa marka jabtarkaas
waxa uu dhahay qayb ka mid ah soo qaad ee hadaya adiga critically u review garay waxaa dhahdaa oo kale chapterkan wuxuu ka hadlay waxaas laakiin aniga saana u arkaa this is correct or wrong whatever fikirkaada ku darso kaas waxaa loo yaqaanaa analysis source hal xabo inaad hadalka soo baxsato kadibna codkaada ku darsato waxaa loo yaqaanaa analysis laakiin synthesize waxaa loo yaqaanaa articles kala duwan hadallada ay dhaheen inta isu keento aad waxaa kasoo saaraysaa qaab cusub kaasa waxaa loo yaqaanaa synthesizing article a waxay dhahday sun article b na waxay dhahday sun kadib waxaa leedahay sida literaturekan ku arkay articlesko dhan waxay dhaheen sidan waxa marka different marka isku keenaysid waxaa loo yaqaanaa synthesizing marka waa the best way one of the best ways oo literature loo qoro waa synthesizing marka skillkan it's a highly recommended skill and matrix markii ma synthesis matrix waxaan sheegnay hadda waxaan dhahnay haddii paperkaadu uu marba rabo inaad source kala duwan isticmaasho waxaa fiican in la isticmaalo synthesis matrix waana literature review markaa qoraysid hal source ma isticmaashaa waa maya waxaa isticmaashaa different sources therefore marba haddii different sources isticmaalaysid skillkan synthesis matrix inaa isticmaashid toolkana kuu fiican okay marka weakness uu leeyahay kii daraad aan sheegnay annotated bibliography haddii aadan waqti badan ku bixin naftirkiisu sida kan waa laga dhigi karaa laakiin ardayda markii kow annotated bibliography la baro oo ay practice gareeyaan waxaa domination ku sameeya qoristooda source by source review article hebel ay ka hadlayaan article 2 ku xijinaya article 3 that is not a good way of writing literature qaabka ugu fiican maxaa waaye article ha u qorine topic u qor topic si ugu qortana toolkan synthesis matrix isticmaal misla fahmeynaa okay si loo qoraa marka waxaan isticmaalaynaa 3 step waxa waaye literatureka excelki aan furi doonaa oo gacanteeda ku tusaanaa sameynaa waxa topica ka hadlaysid horta waa inuu areoyinka wax ka qoraysa fahansan tahay how many subtopic haysataa haddaa xusuusataan aniga topicgeeni hore wuxuu ahaa e-commerce in Soomaaliya laakiin waxaan dhahnay topicyo hoosaan haysanaa 1 consumer trust 2 mobile payment 3 muxuu ahaa awareness 4 perception 5 propensity 5 topic oo topicgeeni hoos imaanaa haysanaa marka 5taas aan kala qaybinaynaa qodobka labaad marka for each chunk articleska marka hadhow marka aqrino qolan waxay kala doontaa consumer trust qolan mobile payment macnaha 5 qayb ay kala aadi doonaa articleska Soomaa qayb kasta marka articleska soo aade junk qayb kasta waxaan sameynaynaa waa isku xireynaa kadibna synthesize jumla aan sameynaynaa kadibna literature-kan describe gareynaynaa hadda aan sameynaa ku arkaysin wax yar ila suga qodobka saddexaad waxa marka subtopic sentence ka hadda aan awoornay aan literature ka soo qaadaynaa quote ama kala paraphrase waa isku xireynaa marka kaas waxa loo yaqaanaa synthesizing marka qoraysid intaan marka galin example-kan gacanteeda ku qoray waxaa rabaa wax yar Dictoreso Natalia Sheridan professoradaas example-kan ka soo qaaday waxaan u arkay inuu simple yahay si aad ku fahantaan u fiirsiya kow waxaa haysanaa 3 article A article B article C article A waxay ka hadashay qodob 1 qodob 2 qodob 3 qodob 4 article B waxay ka hadashay qodob 1 ma ka hadlin qodob 2 waxay ka hadashay qodob 3 iyo qodob 4 waxaan ka wadaa lacala qodobadan waxaan ka wadaa kuwii aan hadda dhahayo kale topicgeenu waxa waaye e-commerce in Soomaaliya laakiin kuwan waxay ka hadlayeen kale consumer trust kan wuxuu ka hadlay sidoo kale mobile payment awareness and perception kan consumer trust uu ka hadlay mobile ka ma ka hadleen qodobka labaad waa maqayn mujida kii saddexaad awareness ku ka hadlay perception ku ka hadlay article kan saddexaad oo si ah waxay ka hadashay consumer trust mobile ku maqan yahay awareness ku ka hadashay laakiin perception ku maqan yahay mujida hadda saa u qortid oo dhada article hebel A waxay ka hadashay 1 2 3 4 B waxay ka hadashay 1 3 4 C waxay ka hadashay 1 3 that is not a good way of writing literature instead waxaan dhahnay source by source u qorine topic by topic u qorma dhino ha source by source waa ABC ma u qoreyno waxaan qoreynaa topic waxaan leenahay theme 1 meeshaan fiirsiya theme 1 meeqa ka hadashay waxaan leenahay qodobka koowaad oo theme 1 ah meeqa article ka hadashay saddexdu way ka hadleen ma ka hadleen way ka hadleen marka waa kana fiir waxaan leenahay theme 1 waxa ka hadleen ABC kulligood ay ku wada hadleen marka saas aan analyze gareynayna qolka fikirkooda meeshaan aan isku dareynaa
sidoo kale theme B meeqa article ka hadashay only one waa kanaasin waxaan leenahay theme B waxaa ka hadashay only article A same qodobkii saddexaad oo ahaa tusaale ahaan awareness oo kale kasoo qaad meeqa ayaa ka hadlay kulligood ay ka wada hadleen waa kan waxaan leenahay theme qodobka ugu dambeeyana waxa waaye qodobka afraad oo midna un example iska qaaday yaa ka hadlay laba ka mid ah ka hadleen sourciga hal kamaysan ka hadlin that is the way loo qorayo marka literaturekaada saan ha u qorin oo ha dhihin article 1 1 2 3 ka hadashay 4 B wuxuu ka hadlay saas C wuxuu ka hadlay ha u qorin waxaa dhehe qodobka koowaad topic sentence waxaa literatureka waxay qabaan saan waxaan caddayn wahay A B C ka hadleen qodobka labaad ma ahan wax literatureka badanaa uu ka hadla maxaa yeelay normally only one source aan soo helnay inta kale xoogga ma saaran mujeda that is the best way of literature loo qoro marka this example waxaa iska leh Dr. Natalia Sheridan iyada marka aan kasoo qaaday si ay u fahantaan okay now aan bilaawna marka see u qoray marka excel file fur excel fileka markaa furto waxaa ku qoraysaa horta kow research topic-aad maxaa waaye research topic-een kasoo qaad example ani waxa waaye determinants of e-commerce in Somalia in e-commerce Somalia ka shaqeeyo maxaa gugundig u asaas u ah oo xukumayo marka waxaan kala qaadaynaa rows iyo column row waxaan ku qoraynaa source-yada waxaan dhahaynaa article A waxay intaan ku qori doonaa article A kan labaad noo tag article B kan kale article C only kanna article D shan aan ka dhigin lahaa soo qaad kanna article E okay 5 article haysanaa marka format yaraan sameynaynaa B bold ka dhig kulligooda waxaa border u sameey background wax yar qorxi markaas literature isku diyaarinaa maho okay this waa sameysanay waxaa haddana sameynaynaa qaybtan tag ee haddana sameynaynaa qaybtan tag waxaa loogu talagalay waa maxay inta qayb aa ka fiirin doonto ciwaankan u fiirsiya ciwaankan oo aad dhahday determinants of Somalia e-commerce in Somalia meeqa qayb ka fiirinaynaa waxaan dhahaynaa marka annaga hadda waxaan haysanaa 5 qayb number 1 waa online payment ko qodobka labaad waxaan haysanaa let me fix double click here okay qodobka labaad waxaan haysanaa waxa loo yaqaano consumer trust okay waxaa kaloo haysanaa awareness waxaa haysanaa perception qodobka ugu dambeeya shanaad waxaa haysanaa waxa loo yaqaano propensity to shop online hal mar marka aan format asina ku sameyno waxaan dhahaynaa kulligooda bold ka dhig border u sameey background in ka bedel halaasam isla fahanay kadib articleskeena dhan intaan ugu hadli doonaa maadaama intaan ugu hadli doono iyadana qaybtan dhan excelka ka soconaato oo border u sameey now we have a synthesis matrix diyaar u ah inaan wax ku qorno misla socnaa shanti qodob waa kuwan articleskana waa kuwan inta article A aan ku qoray adiga hadhow maxaa ku qori doontaa articleka aqrinaysid authorka magaciisa inta ku qoray kana magacyo waa waxaan kan example aad ka wada idinka laakiin magacyo meeshan ku qoray hadhow ya okay waxaan dhahaynaa marka article A qodobkan online payment wax may ka dhaheen ha haddee tahay wixii ay ka dhaheen inta ku qor articlekan haddaysan ku saabsanen online payment ka bood maxay ku saabsan tahay consumer trust lacala for example hadday ku saabsan tahay inta ku qor awareness ma ka hadashay perception ma ka hadashay almuhiim waxa waaye article kasto qodobadan midkay ka hadashay waxay ka dhahday meeshan ku qor marka saas u wada qortid dhammaantooda literature template-kan wuu buuxsami doonaa markuu buuxsamo waxaa la rabaa marka inaad qoraalka bilaawdid see loo sameynaa marka online loo qoraa hadda marka hadda gacanteeda kulli aan hadda ku qoro waqtigaan la dheeraanaya marka mid yaraan tusaale tusaa aniga soo suubiyey si aa idinka idin tuso okay waa kana marka asal fiirinaya hal mar topicii kii hadda le waa this is the determinants of e-commerce in Somalia waxaan ka fiiriyay 5 qayb kow waxaan dhahay author Levy and Waits 2001 article-kooda aqrinaa Ackman and Rehan article-kooda waa anfaca kadib Black 2015 Kwartan Blake number resa okay these are the articles are in aqriya kadib waxaan fiirinaa qaybihii ay wax ka dhaheen markuwan dhan ma aanan buuxinin hal qaybaan bis idin soo buuxiyey laba qayb si aad u fahantaan qaybta waxaan idin soo buuxiyey
la dhahayo yes propensity to shop online. marka inta bilaabin ha hilmaamin authorskan inta aad ku qortay sourcigooda waa inaa isugu geysaa meel. ha bilaabin wax qoris adoon referensigaada xal u sameynin. see loo sameeyaa video aan ka diyaarinay oo la dhahayo sida ugu fiican ee loo manage gareeyo referenceska iyadoo la isticmaalayo mentally videogaas daawo haddii aadan daawan. marka referensigaada adoonan haynin meel ku haynin ha isku bilaabin inaa waxaan isku qortid haddii kale hadhow confusion yar aad ka qaadi doonta meeshaas. okay haddaan bilaaban marka waxaan dhahaynaa shantan lixdan author maxay ka dhaheen qodobkan propensity to shop online. haddaba si fiican ila soco maxaa yeelay waxaan dhan waa isku xiri doonaa bargaraafan ka sameynaa hadhow marka haddii hadda aan ila soconin kas yar waa kugu adkaan doontaa. authorka koowaad columnkan wuxuu dhahay sales growth through the internet outpaces the growth of traditional forms of sales. in internetka wax laga gato xawaaraha uu ku korayo wuxuu ka sara maray xawaaraha ay ku socdaan qaabkii traditionalka ahaa. ninkan saasuu dhahay. authorka labaad wuxuu dhahay companies in developing countries have yet to take advantage of online shopping. shirkadaha ka shaqeeya wadamada soo koraya weli kama aysan faa'iideysan online shopping. authorka labaad saasuu dhahay. authorka saddexaad wuxuu qodobkan ka dhahay Asian stores are still dominated by offline brick and mortar stores. offline waxay yar meeshan type error waay. wuxuu dhahay marka dukaamada Asianka ah weli waxaa xoog ku leh dukaamada ku salaysan brick and mortar. maxaa waaye waa kuwa caadi dhismaha oon online ka ahayn. haye ninkan kale wuxuu dhahay authorka African companies think time of e-commerce is not yet for Africa. waxay u maleeyaan afrikaanta shirkadooda waxay u maleeyaan waqtigii e-commerce weli Africa ma uusan la gaarin. authorkan ugu dambeyn wuxuu dhahay Nigeria and Ghana lag behind in e-commerce adoption. Nigeria iyo Ghana waxay ka dambeeyaan macnaha inay e-commerce la qabsadaan weli maysan gaarin heerkaas. meeshan markaas saas qodobkan waxaan dhameyn hadda hal qodob. halka qodob waxaan dhahnay waa propensity to shop online. waxaana haysanaa author kasto wixii oo ka dhahay. step ku xig maxaa waa marka stepka ku xig waxa waaye authorskan hadaladooda haddaa u fiirsatid wax mideynaya ma jiraan. si aan u qoraan bargaraaf waa inaan haystaa wax mideynaya. haddaa u fiirsatid kan oo sales growthka wuxuu dhahay oo internetka wuu ka xawaar badan yahay traditional. qodob waaye qodobkan shirkadaha ka shaqeeya developing countrieska weli ma ka faa'iideysan misla xiriiraan maya wax yar islama xiriiraan. okay qodobkan marka yahay shirkadaha ka shaqeeya developing countrieska weli ma ka faa'iideysanin online. okay shirkadaha Asianka ah weli waxaa xoog ku leh brick and mortarka storeska misla xiriiraan. haa waa isla xiriiraan. Asianka weli waxaa xoog ku leh brick and mortar oo dhahay kana wuxuu dhahay shirkadaha developing countrieska weli ma ka faa'iideysanin online shopping. so islama xiriiraan marka way isla xiriiraan. kan saddexaad tag shirkadaha Afrikaanta ah weli e-commerce waqtigooda lama gaarin ay aaminsan yihiin. haye mala xiriiraa qodobkan haa saddexdan way isla xiriiraan. qodobka ugu dambeeya Nigeria iyo Ghana way ka dambeeyaan marka laga hadlayo isticmaalka iyo la qabsiga e-commerce. mala xiriiraa wixii hadda excellent yes. meeshan waxaan ku haysanaa marka afar source oo isku wax ka hadlaya laakiin aragtiyadii qaabka perspective-ka ay ka fiiriyaan ka duwan. kan country level waa Nigeria iyo Ghana, kan waa continent level, kan waa continent level, kanna waa developing country. hal mar isku qabtay developing countries-ka. kanna inkastoo concept-ga uu kuwan toos ula xiriirin haddana sidaan u gelin karnaa oo isugu xiri karnaa. markaad waxaa laga rabaa inaad dhistid bargaraaf waxaan dhan authorskan dhan isku keenayo adoo waxaan dhan qaabka isku xiri lahayd ka fikiraysid. marka it takes time skillskaas inaad develop garaysid laakiin kulama aad isku daysa samaysid muddo kooban kulama skillkaas uu ku develop garaysid. hadda marka waa sameynaa waxaan sameynaa bargaraaf oo iskugu xirayo intaan hadda aan sheegnay. bargaraafka marka waa kana waa qoray tusaale ahaan aad idin tuso. fiiriya soo ma ahayn authorkii koowaad hadayd muxuu dhahay internetka kobiciisa wuxuu ka xawaara dheer yahay kobaca traditional formska of saleska soo ma dhihin. waxaan dhahaa marka selling through the internet is changing the norms of doing business globally. fiiriya this is a topic sentence anaa iska samaystay see ku sameeyey because waxaan fiiriyey
sentensyada hadda oo waxaan hadda ka hadlayn markaan fiiriyo ama waxaan islehay isbedelka internetka dunida ku dhacay waxa waaye mid ku dhacayo isbedel maxaa caddayn ku ah waxaa caddayn ii ah ninka hadda sourcigiisa wuxuu dhahay internetka in wax laga iibsado today keliya ma ahan option maanta internetka wax laga iibsado wuxuu xabaarihiisa ka sareeyaa in wax laga iibsado traditionalka ay sourciga hadda soo dhahay saas ma aheno ha waa kana marka meesha qaabkaas aan soo dhexgeliyey u fiirsaya qaabkaas kugu xiri waxaan dhahay internetku in wax laga iibsado maanta option ma aha maxaa yeele waxaa caddayn u ah dadku kobaciisa internetku wuu ka xabaar dheerayaa kii hore waxaan dhahay marka source one waa isticmaalay waa iga dhamaatay meeshaas source two iyo wixii qodobada kalena isku xiraa rabaa meesha hadda u fiirsatid halkan source way ka duwaneed sourceyada kale soo ma aheen ha sourcea marka keligeeda goonigaasaan u qoray hadda marka waxaan rabaa inaan isku xiro sourceyada soo socda dhan u fiirsaya marka waxaan dhahaa however marka si aa u bilaawdid almost waxaa fiican inaa isku qabatid continent level ka bilaawo kadib region kadib country kadib hoos u deg levelka markaas u kala weyn u kala nasiiyey waxaan dhahaa marka however shirkadaha ka shaqeeya developing countries-ka gaar ahaan Asia iyo Africa soo hadda wixii aan aragnin oo sourciga ma ahayn oo literature matrix-keena ha waa weli kama faa'iidaysanin e-shopping this bandwagon ma yaa caddayn ku fiiri 1 2 3 waa isku wada qabta mujida aan 4 author waxay dhaheen saas this is the best skill laga rabo haddii aad samayn kartid skill pointi ay dadku dhan ku wada midaysan yihiin haddaa qaabkan iskugu xiri kartid literature review ugu fiican waa kaas literature hal qodob keliya iyo hal article keliya ka hadlaysid maaha qaab fiican marka hadda waxaan dhahnay kambaniyada ka shaqeeya developing countries-ka gaar ahaan Asia Africa weli ma ka faa'iidaysanin online commerce-ga waxaan caddaynayaa 4 author okay u fiirsa markii aad haddaa xasuusatiin soo idinma dhihin literature markaa qoraysid hal raacaa stebi soo idinma dhihin soo haddayd ma dhihin qodob kasto jankiga kee waay hadda waxa waaye hal qodob ka mid ah 5 qodob soo ma dhihin ko synthesize ku suubi kadibna describe garee literature-ka hadda marka labadaas step aan tusaa synthesize si loo sameeyaa kadibna describe loo sameeyaa nooceen marka meeshan hadda fiiriya meeshan si fiican ila fiiri as majority of the literature agrees on sida isku raacayaan literature-ka this is called synthesize kana Allah waxaan hal mar isku xiri rabaa literature-ka dhan waxaan caddayn waa jumladan waxay caddaynay in wax soo socda yihiin wax isku xiran kadib waxaan dhahaa marka describe waxaan maadaama isku xirtay step 1 waa this is the synthesis step kale muxuu ahaa describe hadda marka describe gareen waxaan dhahaa the growth of online shopping is faster and stronger in developing countries than the developed countries of Canada authorkan siduu u dhahay developing countries-ka la qabsiga internetka kobiciisa iyo xawaaraha uu ku korayo wuxuu ku xoogan yahay developing countries marka loo fiiriyo developed countries sababtoo ah dadkan mar hore bilaabeen wayba hore u la qabsadeen marka growth haddii laga hadlayo hadda wuxuu ku xoogan yahay meeshan fiiriya kaliya meeshaas kuma ekeen waxaan dhahay source kale ku xirnaa waxaan dhiraa and is becoming a common means of delivering of products and information internetkun wuxuu noqonaa qaabka commonka ka ah wadamada developing countries marka laga hadlayo in alaab la deliver gareeyo informationna la gudbiyo yaa dhahay ninkan kale u fiirsa marka jumladan waxay muujinayaan in literature-kan isku xiran yahay waan kana waa literature kala duwan laba qof si iskugu xiri hadalka tooskan u qor kadib kii kale ku xir waxaa marka waa inaad ka fikirtaa si iskula xiriiraan marka you need to take time labadan source marka intaan ka keenay iyadana table-kayga lay ku jiraan weli waa kuwan growth of online shopping ninkana dhahay growth of online shopping is faster and stronger in developing countries kana wuxuu dhahay e-commerce wuxuu noqday the means of delivering of products in developing countries marka pointyada dhan waa fiirinay way kala duwan yihiin mujido marka matrix-ka meelo kala duwan ku yaalaan laakiin waxaad rabaa ka fikirtid pointyadan si iskula xiriiraan sida iskula xiriiraan marka aragtidna kadib literature paragraafyada saas u qoraysaa sida hadda aan sameynay meeshan marka maxaa rabaa inaan idin sheego waxaa rabaa inaan idin sheego wuxuu uu ku fiican yahay synthesis-kan waxa waaye waxaa arki kartaa qodob ka mid ah 5 qodob authors-ka dhan way ka hadlaan laakiin qodobada qaar authors-ka 2 ama 3 lay ka hadlayso
meeshaas waa fursad waana ka faa'iidaysan kartaa that is called literature gap meel laga helo waay waxaad dhihi kartaa literatureka oo dhan waxay focus ka saaraan eriyadan kala duwan laakiin meeshan sida ku cad keliya ma aha meel ay kulligooda focus gareeyaan waa meel u baahan in further research laga sameeyo and that is the reason why I'm doing this research mujeda marka one great way oo aad literature gap ku sameyn karto waxa waa inaad baratid toolkan sida loo isticmaalo oo loo yaqaano synthesis matrix marka maxaan idinku caawin karaa waxaan idinku caawin karaa linkigaana idin siinaa waxaa iska leh Virginia Commonwealth University materialska maanta isticmaalo sharaxaadda aan u isticmaalo dhan waxaan kasoo qaaday waa kana sida aragtaan sourcegan jaamacaddaas iska leh Virginia Commonwealth University marka linkigan waxaa idin soo dhigaa descriptionka videogan fiirso booqo soo degso template soo leeyahay templateska tartiib waxaa fahan wuxuu kala qaadaa marka fiirsaya wuxuu idin sharxaa literatureka kow literature iyo the review maxay kala yihiin processyada hadda aan sheegnay sida loo maraa overview kadib siinaa kadib wuxuu bilaabaa toolka hadda aan dhahnay synthesis matrix sida loo sameeyo synthesis matrixka maxaa marka resourcega freega meeshan ku yaal maxaa waaye waxaa meeshan ku yaala let me show you wuxuu ku baraa horta kow sidee laiskugu xiraa multiple source 10 author hal mar se iskugu xireen wuxuu kaloo ku baraa sida loo isticmaalo synthesis matrixka maanta sharxayna kadibna wuxuu ku siinaa template isla markiiba hirgelin karto templatekas marka hadhow degso kadibna fahan soo eg yahay waa kana sida uu eg yahay marka word waa ayagooda fahan keliya informationkan badan uma baahnid haddii aad inaad literature qortid laakiin midkan labaada isticmaali kartaa haddii kale waxaaba fiicanba sida ani hadda u qoray develop garay saas sameey excel furo topic qor kadib sourceyada inta ku qor qaab oo horizontal u qor verticalkan waxaa u qortaa topicyadaada marka waxaan rajaynaynaa qaabkaas aan isla fahanay cashirka literature reviewgan maanta halkaasaan ku joojinay haddii ay tahay marka ugu horreysay aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumad u eg gambaleelka ee ku taala dhanka midig ee subscribe mahadsanid